shirka sanadlaha ah ee ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata dalka Uganda ayaa ka dhacay caasimadda dalkaasi Kampala. Yusuf Kashmir ayaa warkan eegaya. shirkan oo ah mid ay sanadkii mar isku arki doonaan gudoomiyaasha ururada ardayda Soomaaliyeed ee jaamacadaha dalka Uganda wax ka barata iyo hoggaanka midowga ardayda qaranka ayaa waxa shir gudoominayay gudoomiyaha midowga ardayda qaranka Soomaaliyeed ee dalka Uganda Mudan Cabdiqaadir Cumar Cabdilla Fiidka. madasha shirka ay ku sugnaayeen gudoomiyaasha ardayda jaamacadaha iyo xubno ka mid ah ardayda ayaa waxa lagu hadlayay qodobo dhowr ah. shirkan uu daahfuray wakiilka midowga ardayda qaranka Soomaaliyeed ee dalka Uganda Cabdiqaadir Cumar Cabdilla Fiidka ayaa ka hadlay ahmiyadda ajendaha shirkan ee sanadkan. sidoo kalena wafuudda shirka ka soo qayb gashay kaga mahad celiyay howlaha ay u hayaan ardayda Soomaaliyeed siguna ku booriyay inay sii laabaan Soomaaliyeed ee jaamacadaha Uganda iyo wakiilada kale iyagana nagala jooga daladaha ama ururada kale ee ka dhisan dalka Uganda iyo xubnaha kale ardayda iyaguna firfircoon ka mid ah inaan idinka mahad celiyo sidaad shirka u soo ajiibteen iyo runtii howlaha kale ee wanaagsan ee u haysaan ardaydeena Soomaaliyeed. intaas kadib madashan inay tahay madal sanadla ah oo laakiin sanadkan ay tahay tii koowaad waxaan rajaynaynaa inay noqoto mid sanad walba markaasi dadka muhiimka u ah ardaydeena ama indhaha u ah oo ay gudoomiyaasha jaamacadaha ugu horeeyaan inay isku arkaan oo ay markaasi masiirka iyo danaha ardayda Soomaaliyeed ay kaga hadlaan insha Allah. waxaan rajaynaynaa mid wax ku oolo miro dhala oo jilba jilka ka dambeeya oo ka sii dhaxlo inuu noqon doono insha Allah. qodobada ama ajendayaasha shirka hadda inoogu furan sidaad u jeedaanba qodobka noogu muhiimsan oo ah caqabadaha soo wajaha inta badan ardaydeena iyo sidii loo xalin lahaa halkan kulleeyto waa isla wada fiirin doonaa marka gudoomiyaasha jaamacadaha inta badan haduu alla idmo ahmiyadda siin doonaa maadaama waqtigan uu nagu yar yahay inaan qodobkaas si fiican aan markaas ugu wada hadalno sidoo kale intana aan markaan caqabadihii aan helno kadib inaan xalkeedii sidii loo xalin lahaa inaan markaas isla garanno kadibna wixii aan ka dhigno wax miro dhal oo shaqeeya haduu alla idmo. intaas kadib ayaa waxa shirka warbixino ku saabsan sanadkii tagay 2019 iyo qorshaha sanadkan cusub laga dhageystay gudoomiyaasha ururada ardayda Soomaaliyeed ee jaamacadaha dalka Uganda. waxaana sidoo kale shirka lagu gorfeeyay xalinta caqabadaha soo wajaha ardayda Soomaaliyeed. ardayda fiisayaasha jaamacadeena imtixaan markii la sameeyo bas ardayda fiisayaasha raadsata jaamacadda imtixaan u sameyn kartay adoon fiisa ku saarnayn. waxa dhacday ardaydii anagoo one week ugu dambeeyay in qof walba Soomaali uu dhaho fiisa meesto poor research skills waxaan arkaynaa qaarkeena researchka inuu dhib nagu yahay buugiyo kale marka la sameeyo kale inta badan nagu adag yahay inaa horta taa kalsooni yeelataa fiican wixii sameyn kartid aamin haddaadan sameyn poor research skill hadaa yeelatid masterkii ma wadi kartid. waxaad arkaysaa arday 5 sano joogay digriigii buu bartay masterkii buu bartay 5 sano ka bacdi wuxuu soo xasuusanayaa luqadii inuusan aqoonin markaas wuxuu leeyahay Soomaaliya rabayna aad luqadiina ma aqaan waxa isiisa direction. shirkan oo ku soo ilaa jawi loo talagalay la rajaynayo inuu noqdo mid sanad walba hoggaanada ardayda kaga arrinsadaan ayaha ardayda Soomaaliyeed wax ka barata dalka Uganda. Yusuf Maxamed Macalin Kashmir, raadiyaha telefishinka